wuxuu noqday shakhsiga sanadka 2014 ee qaaradda Afrika. Kaliya ma noqon shakhsiga sanadka wuxuu kaloo noqday qofka ugu taajirsan qaaradda Afrika. Sidoo kale wuxuu kaalinta 23aad kaga jiraa maalqabeennada caalamka. Hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa 14.3 bilyan oo dollar. Wuxuu leeyahay shirkado kala duwan, intooda badan waxay ka kala shaqeeyaan wadamo kala duwan sida Benin, Cameroon, Togo, Ghana, South Africa iyo Zambia. Wuxuu ka soo jeedaa qoys Muslim ah oo hanti iyo magac ku leh dalka Nigeria. Haddaba ninka aynu ka waramayno waa Alhaji Aliko Dangote oo ah ninka ugu taajirsan qaaradda aynu ku noolnahay Afrika. Waxaynu ka hadli doonaa taariikh nololeedkiisa iyo sida uu u gaaray heerka uu maanta joogo. The most important for me is actually the development of the company, in terms of, processes and, people, and so that it can actually help. Alhaji Aliko Dangote waa hal abuurla ganacsi, waa aasaasaha shirkadda Dangote Group. Wuxuu dhashay 10kii Abriil 1957 kuna dhashay gobolka Kano, dalka Nigeria. Waxbarashadiisii heerka koowaad wuxuu ku qaatay jaamacadda Al-Azhar dalka Masar, isaga oo ka qalin qortay cilmiga ganacsiga. Sanadkii 2014 wargeyska Forbes wuxuu sameeyay qiimeyn ku saabsan maalqabeennada dunida. Waxay sheegeen in Dangote uu yahay shakhsiga sanadka 2014 ee qaaradda Afrika. Kaliya ma noqon shakhsiga sanadka wuxuu kaloo noqday qofka ugu taajirsan qaaradda Afrika. Sidoo kale wuxuu kaalinta 23aad kaga jiraa maalqabeennada caalamka. Hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa 14.3 bilyan oo dollar. Dangote wuxuu leeyahay shirkado kala duwan, intooda badan waxay ka kala shaqeeyaan wadamo kala duwan sida Benin, Cameroon, Togo, Ghana, South Africa iyo Zambia. Wuxuu ka soo jeedaa qoys Muslim ah oo hanti iyo magac ku leh dalka Nigeria. Yaraantiisii wuxuu ahaa qof xiiseeya ganacsiga. Mar isaga oo ka hadlaya sida uu u jeclaa in uu noqdo ganacsade, wuxuu yiri, waxaan xasuustaa markii aan iskuulka dhiganayay, waxaan soo iibsan jiray kartoomo yaryar oo sonkor ah, kadib waan sii iibin jiray si aan ugu helo macaash. Markii uu jaamacadda ka qalin qortay, wuxuu dib ugu soo laabtay dalkiisa Nigeria. Wuxuu lacag ka daysaday adeerkiisii Sansuu Abdulqaadir si uu yoolkiisii ugu run sheego, macnaha si uu ganacsi u sameeyo. Sidaas ayuuna ku soo galay saaxadda ganacsiga. Lacagtii yareed ee uu ka daysaday adeerkiisa waxay u noqotay barbilowga guushiisa, isaga oo durbadiiba aasaasay shirkado kala duwan. Wuxuu ugu magac daray Dangote Group. Gugii 2012 wuxuu qaaday tallaabo weyn si uu u horumariyo ganacsigiisa, taasi oo ahayd codsi uu u gudbiyay dowladda Nigeria. Codsigaasi wuxuu ahaa in qayb ka mid ah dekedda Apapa lagu wareejiyo shirkadiisa. Waa laga aqbalay. Taasi waxay u sahashay in uu si fudud ku ballaariyo ganacsigiisa. Sidoo kale wuxuu codsi la mid ah kii hore u diray banka dhexe ee dowladda si canshuurta looga dhimo. Waa laga ogolaaday. Taasi waxay kaloo u fududeysay in shirkadihiisu ay si sahlan ula wareegtay suuqa, gaar ahaan dhoofinta sokorta, cusbada, bariiska, kalluunka, shamiintada iyo suufka. Sidoo kale waxaa korodhay saamiga ay shirkadihiisu ku leeyihiin suuqa. Wuxuu gaaray 70%. Sanadkii 2009 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta qofka ugu shaqo abuurka badan dalka Nigeria. Isla sanadkii 2011 wuxuu mar labaad ku guuleystay shakhsiga loogu tixgelinta badan yahay Nigeria. Abaalmarintaasi waxaa guddoonsiiyay madaxweynihii hore Nigeria, Mudane Goodluck Jonathan. Mar isaga oo ka hadlay arrinka shaqo abuurka, wuxuu yiri, haddaad isiiso 5 bilyan oo dollar, waxaan ku maalgelin lahaa fursad waliba oo taala dalka.